وقوي بري تيفي aqoon-yahano samafalad ubax awl dirir ayaa maanta deeq lacag gaarsiisay carruur agoon ah oo ay ka geeriyoodeen dhalinyarada dhawaan ku dhiman jirtay shil gaari kuwaas oo kala ahaa Wacays Cali Maxamed iyo Maxamed Farxaan Maxshuwaan isla markaana ugu tagtay deegaanka Gambare ee gobolka Sool halkaas ay ku sugnaayeen carruurta agoonta ahayd ay ka tageen aniga magacaygu yahay ubax awl dirir maanta waxaan la joognaa labadii qoys maxaan ku raahdaa ahaa oo labada qoys oo kala dhalay labadii marxuun ee dhawaan dhiman jiray haddaan ku bilaabo maama Faadimo Xareed waxay ayeeyo u tahay Maxamed Farxaan Maxshuwaan gabadhaasina waa xaaskiisii maamadana waxa weeyaan maamadii dhashay Wacays Cali Maxamed hooyadii weeye marka waxaan joognaa deegaanka Gambare maanta waxaan u gaarsiinay lacag yar oo ay dhalinyaro maxaan ku dhahdaa deegaanka ah ay soo ururiyeen lacagtaas oo loogu talagalay in qoysaska geeriyeysan tacsi ahaan loogu geeyo marka labadii qoys oo wada jooga waxaan doonayaa inaan si wada jir aan ugu wareejiyo ay igala wareegaan marxuumiintii dhintayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa inuu jannadii firdawsa uu ku arsaaqo kitaabkoodana midigta uga dhiibo dambiga waalidkoodna Allah dhaafo qoysaskan iyo maamooyinkan iyo ayeeyooyinkan waxaan leenahay Ilaahay samiriya iimaan ha ka wada siiyo way naga wada baxeen waa wiilasheeni qadartuna qof kastaaba wuxuun buu maaragtay kulli qof walba intii adduunka loogu talagalay uu joogaya marka waxaan doonaynaa inaan geerida idin la qaybsano lacagta yar waxa soo diray qoliyo deegaanka ka soo jeeda waxaan doonaynaa marka inaan idinku wareejino oo aad naga gudoontaan waxa weeyaan waa ayeeyo Faadimo Xareed Faarax oo ahayd hooyadii dhashay Farxaan Maxshuwaan oo hore u geeriyooday baa la joognaa maanta farxaana waxaan leenahay Ilaahay jannadii firdawsaha ka waraabiyo iyo dhammaan dhalinyaradii ka daba dhimatay geerida iyo murugadana waanu la qaybsanaynaa marka waa saas ay inay igala wareegtaan baan doonay waxaan la joognaa hooyo Nadiifo Maxamed Maxamuud oo ahayd hooyadii dhashay Wacays Cali Maxamed oo iyadana rabna inaan ku wareejino qadarkii lacagta ahaa oo anaga dhalinyaro ah oo maxaan ku raadaan is xilqaanay oo aan u soo ururinay ma badna laakiin waxaan u leeyahay waa tacsi dawladana tabiyo caafimaadkaadana taan ka dhigo annagoo mahad u celinayna dalka iyo dibadda meesha joogaan dhalinyarada iyada oo Ilaahay noo barakeeyo oo sabdaraaya naga tusin oo cadawooda la tabiyo caafimaadkooda taan ka dhigo irsaaqada waasac laga dhigo iimaankooda naga dhigo annagoo u mahad celinayna intii dhimatayna Allah u naxariisto annagana Ilaahay samiriyo iimaan naga siiyo ubax awl dirir oo gabadhan yar oo aqoon-yahan ayaa mar walba ilgaar ku eegtay dadka jiran kuwa danyarta ay ku agoonta ugu dambeyntiina gaarsiisay qadarkii lacagta ahayd labadii qoys oo wada jooga ku soo dhawow bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee Waqooyi Bari TV fadlan si aad u heshid wararka ayada fadlan subscribe saar jalasku waxa kuu sahlayaa inaad si fudud ka heshid wararka ayada mahadsanid waan hubaa wararkan soo galino bogga aan ku leenahay YouTube-ka inaad ka heli doontid haddii Ilaahay idmo wararka deegaamada Waqooyi Bari iyo Soomaaliya inteeda kale warar ku saabsan halkan ka hel daawadaha sharafta leh mar kale ha u deeman la'aan bogga aan ku leenahay Facebook-ka ee Waqooyi Bari TV si aad u heshid wararka ayada isna booqo bogga aan ku leenahay Facebook-ka ee Waqooyi Bari TV